السلام عليكم أصحابي كسو دواذا مقالكينا يوتيوب طبعا مدوين كان معنا سوق هذا مقالديني أي نحرستو كدهان تهي الله حتى بقى نوجد قلنو كيفتي سيتو طبعا هيا بنا حتى عربية الله runtii waa cajiib gabadhan ayaa lacag u gelinaysa murahaadka gaarigan hooyadan ilmaha wadata waana wax qurxoon inaad qof ka farxisid bal eeg shucuurteeda taageerahan meesha taagan ayaa maanta dhalashadiisu tahay isagoo na jiirsaday 21 sano balse hal mar ayaa garoonkii dhamaa taageerayaasha soo camreen ku dhawaaqeen dhalashada jawi aad u qurux badan iga aaba wanaagsan iga dheh wiilkan indhoolkaahi wuxuu taageeraa mucjisada kubadda cagta ee Lionel Andres Messi haddaba Lionel ayaa dhaliyay gool aabihii ayaa u sheegay wiilkiisii in Messi uu dhaliyay gool bal eeg falcelintiisa gabadhan ayaa ku jirtay live inaa si toos ah ninkan dhalinyarada ahi ayaa meel fog ka arkay gabadhan oo wiilal ay qashqashaadayaan wuuna ka celiyay sidoo kale wuxuu aqoonsaday meesha ay degan tahay nasiib wanaag waaba isku aad xaalad baa isku toostay ajaayib sheeqow gabadhan yari ayaa biyo qabow keentay shaqaalahan dhisay wadadan iyadoona maalintu tahay maalin aad u kulul waa muuqaal ku dayasho mudan darawalkan ayaa gaarigiisa uga dhigay caruurtan buunto ay kaga tilaabsadaan biyaha aba bay qaabka gabadha nambarka loo weydiistay baa iga gadan allah dabcan waa xaalad murugo leh inaad weydo lixdaada lixaad ee hodankahay ee alla nagu galeystay haddaba odaygan aad aragtaan xaalkiisa ayaa ninkan dhalinyarada ahi u keenay gaari curyaankan bal eeg qaabku u farxay bal qiyaas lacag dhan $360 ama ka badanba farxadda iyo reereynta ay abuuri karto waaw cajiibiga dheh haweeneydan ayaa gaarigeeda siisay macalimadda gabadheeda taas oo basas badan u soo raaci jirtay markay shaqada soo galayso waxayna u siisay gaarigeeda qaab hadiyad ah bal arag shucuurteeda dabcan qofkan wuu gamay balse wuxuu madaxa la dhacayaa qaybta dambe ee kursiga nasiib wanaag ninkan ay gacantiisa ka xijiyay kursiga allah shaqo wacan ayaa qabatay walaalka aabahan waa inuu ku faana gabadhiisa waayo waxay qadadeedii siisay haweeney u baahan xitaa intaa kaliya ma ahane ee waxay wada fariisteen hal kursi cajiibiga leh sida hal qoys oo kale xaajigan ayaa timaha u xiiray xaaskiisa sababtoo ah waxay timaheeda ku weeday kiimo oo ah nooc daawooyinka loo qaato in lagu daweeyo xanuunka kansarka balse hal mar ayuu bilaabay inuu iska xiro timihiisii cajiib way runtii bal arag ninkan wuxuu gadanayaa shimbirahan yaryar ee ninkan uu gadayo isagoona sii deeniya shimbiray dhulkaaga qaraabo gaarigan sii dhacaya ayuu si qurux badan u soo celiyay ajaayib sheeqow ardadan waxay macallinkooda ugu hambalyeynayaan maalinta dhalashadiisa bal eeg falcelintiisa allah odaygan jeeneeskaahi bilaa shaki waxay maalintan u ahayd maalin aad u xun kadib markay ka daadatay lacag dhan $3,600 nasiib wanaag waxaa ku soo yaacay dadkii goobta ka agdhowaa iyagoona la ururiyay lacagtii xushmad maqaamkii u sareeyay ay u muujiyeen good job dadkan ay ficil aad u qurux badan sameeyay iyagoona koob shaaxa u keenay ninkan nadiifinaya daaqadan dhalinyaro guuleysta ninkan baska wada ayaa gaari ka soo degay si uu wadada u dhaafiyo odayga indhoolkahay sacabka idinkama hayo awowayaal farshaxanistahan ayaa sawiray qoyskan wiilkooda sawirkaana waa top level wuxuuna u dhaqaaqay dhankooda si uu hadiyad ahaan uga dhigo bal arag falcelinta wiilka yar walaalka waa la keentay camal wiilkan yari ayaa dhibaato iyo gardareysi badan kala kulma ardada maadaama uu maalin kasta u soo xirto dhar isku mid ah balse maanta way ka duwan tahay oo ardada isku fasalkiisa ah ayaa u keentay dhar cusub allah waa helo jacayl dadkan wadada ayuu u sii banaynaya gacalisadiisa si aysan cagaha ula gelin barafka bal arag wiilkan qaabka quruxda leh u dhiirigelinayo saaxiibkiis cajiibiga dheh You are a brilliant rugby player, you understand that? You're insane! You are actually insane for you. saaxiibka dhabta ah ayaa ah mid ku garab taagan waqtiga adag wiilkaana saaxiib cajiib ayuu leeyahay ninkan adeega geey ayaa markuu heestiisa dhamaystay helay abaalmarin cajiib ah ay u dhigeen dadka gurigan iska leh ayagoona u dhigay cuntooyin fudud waaw cajiibiga dheh
gabadhan waxay soo ilowday daladeedii iyadoona degdeg ku jiro ayay goysay wadada balse dib ay u soo laabatay kadib markay aragtay islaan waayeel ah allah waxayna garab ku siisay inay dhaafiso wadada isku day inay caawiso dadka waaweyn iyo lama ooyaanka oo la isku yiraahdo carruurta iyo xayawaanka maadaama dareenkoodu aysan hadal ku cabiri karin Bye. Ninkan waxaan dhihi karnaa bini'aadantinimada ku weyn. Ninkan ayaa go'aansaday inuu xoreeyo dhammaan shimbirahan isagoona iibsanaya bedelkeedna fasaxaya. Waa muuqaal aad u qurux badan dhabtii. Allah subxaanahu wa ta'aala ayaana faray inaan u naxariisano addoomihiisa iyo makhluuqaadkiisa kale. Haddaadan caawin karin ha dhibin walaal. ninkan si qurux badan ayuu caawinaya kulunkan isagoona ka saaray biyihii yaraa geeyana badda safar salaama ma jirto wax ka qurxoon inaad caawiso cidda caawinaad u baahan bal arag gabdhahan dareenkooda dabcan aad ayuu faraxsan yihiin dabcan cunugan wuxuu cunayay jalaatada ice creamta balse nasiib xumo way ka dhacday isagoona raacay dareenkiisii dhammaa kadib maxaa dhacay ninkan ayaa u keenay jalaato kale walow markii hore uusan arkayn ugu dambeyntii wiilka yaraa wuu farxay Allah eegan yari ayaa ahaa mid ku gaafureegay qashinkan isagoona raadinaya cunto uu cuno balse ninkan ayaa siiyay wax uu cuno isagoona go'aansaday inuu qaado gurigiisa uuna la joogo aabahan ayaa u sheegay gabadhiisa in uusan u soo helin keeg xafladda dhalashadeeda ah balse si lama filaan ay ugu keenay gabadhii yareed ayaa bilowday inay ooyso Allah aaba wanaagsan iga dheh halkaas ayuu ku joogaa muuqaalkeena maanta nabadgeliyo